السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة iyo muuqaal cusub muuqaalkan ka faa'iideyso hadii aad haysatid ilmo yar 6 bilood caruurta jiro ilaa wixii ka weyn ayaan ugu talagalay. waxa kale aan doonayaa ilmaha ka yar 6 bilood in la sii karo xulbada iyo in kale fiidiyogan ayaad ka ogaa doontaa dhexdiisa. ugu horeyntii hadaa igu cusub tahay subscribe iyo channelka, like garay muuqaalka, sii share garay wixii su'aalaha qabtiin qaybta commentiga igu soo qora. intaas kadib xulbada caruurta yaryar oo umusha ah ma la sii karaa? hooyooyin badan ayaa hore soo weydiiyay. markastana waxaan jeclahay waxyaabaha aan isdhihi karo hooyooyinku way ka faa'iideysan karaan si caam ah in aan igu soo gudbiyo. fiidiyooyo hore way jiraan aan ka soo sameeyay, balse waxaa moodaa hooyooyinka igu cusub oo igu soo biiray in aysan la socon gadaalna isugu laaban. wixii faahfaahinaa kuley xag u aada insha Allah fiidiyooyada hore, laakiin hadda maanta waxaan doonayaa in aan sharxo oo sheego waxyaabaha aan isdhihi karo wax badan ayay ka ogaa karaan xulbada iyo fawaa'ideeda iyo qaabka ilmaha miisaanka looga siyaadiyo. xulbada horta ilmaha marka ay dhashaan sida caadiga ah ma lagu bilaabi karo لأنه aad bay u xoog badan tahay oo xadii waxa ku jiro aad u sareeyo ilmaha neefshiidkooda ma aqbali karaan. ilmaha 6 bilood jiro qismaha loogu talagalay ama garaamka ay ka qaadan karaan waa la wadaagayaa, laakiin ilmaha ka yar 6 bilood ilaa umusha gabdho waan arkay dhihi karo waa yani dhahay waa la sii karaa ilmaha caanaha loogu qasaa waxyaabahaas, laakiin waa wax kama jiraan yaana ilmaha ma xamili karaan. ha iska dilinina caruurtiina wax kasta oo la dhaho ilmaha la sii karaana ha ku baraaweynina, ka joojiya waxyaabaha dhibaatada ka soo gaari karo yaana waa ilmo yaryar neefshiidkoodana aad buu u jilicsan yahay ma xamili karo. ilmaha marka jira 6 bilood ilaa iyo sanad qaabkee loo siinayaa ilmahaas waxaa jira qaab loo siiyo horena uga soo hadlay. qaabka aad u sii kartid waxa waaye waa in aysan ka badnaan 9 mir ilaa 10 mir inta u dhaxeyso. intaas ayaa xitaa aad ugu marka qaabkaas ayaa ugu sameynayda. waxaa ku sameynay marka biyo ayaa dabka saareeda. biyaha aad rabtid ilmaha in aad caanaha ugu qastid ayaa dabka saaranay. xulbadii oo nadiif ku ah 10 mirood ayaa ku ridanaysaa. kabacdi markay ku karkarto ayaa biyahaas caanaha ugu qaseeda. dirmuusa ku shuba kartaa, laakiin waa in maalinkii 2 mar ilaa 3 mar aad sii kartid haddii aad rabtid natiijo fiican inaad ka heshid. waana inaad ku celcelisid. abiteedka ilmaha way furtaa, caloosha caafimaad bay u tahay, lafaha ilmaha kobcisaa, miisaan fiican ayay siidaa, neefshiidkay u fiican tahay. waxyaabo badan oo fawaa'id ah ayay leedahay xulbada. ilmaha sanadka ka koreeyo waxaad sameynaydaa qaadada afkeeda hore ayaad ku soo qaadee ayadoo shiidan iyo ayadoo biyo aad yani ku karkarisay ama caadiba inta u karkarisid ay caanaha ugu shiida kartaa. kadibna waa siinaysaa ilmaha. waxaad ka arki doontaa ilmahaas in miisaankooda uu kobcay, abiteedkooda uu furmay, lafahooda ay baxeen oo yani cunug lafa qurxoon leh uu noqday, dhirirkiisana si aad ah u socdo. midda kale ilmaha caafimaad badan ay xulbada ka dareemaan, neefshiidkooda caafimaad buu ka dareemaa, maqaarka jirkooda aad bay u qurux badnaadaan. markasto isku daya ilmaha inaad u sameeyaan caruurta ka shisheeyo sanadka oo yani ka koreeyo. ayagana waad uga siyaadinaysaa 2 sano 3 sano 4 sano wixii ka koreeyo. intii hadda aan kuu sheegay ayaa mar walba ka qiyaas qaadanay, laakiin muhiim waxaa ah in caano kulul ama biyo kulul aad ku karkarisid oo si fiican ay u karkarto. ama ayada naftirkeeda biyo ayaa dabka la saaray. markii ay biyaas ku karkarto oo biyihii ay gursato ayaa waxa sameynay waxa ku shiida kartaa caanaha. ma fahamtay? caanaha ku shiiday kala arag cunugaas maasha Allah tabaaraka raxmaan si wacan ayuu ku korayaa, caafimaadkiisana lagama sheekay karo. waxyaabo badan oo waxaan ku arki doontaa aad ku farxad geliyo. waan ogahay hooyooyinka markasta waxay iska jecelyihiin waxyaabaha aadka u fudud. kuley xulbadan meel walba taala. waxaa jirto 2 nooc ayadoo ah mid Ethiopian ah iyo mid kaleeto isku nooc ma aha.
mida Itoobiyaanka aad bay u fiicantaa dhagaxaan badan iyo wasaq badan ayaa ku jiro iska nadiif iska dhaq dhagaxaanta ka saar ka bacdina qalaji kadibna waxa aad ku sameynayda ku sameyso waxa ku arki doontaa insha Allah natiijo ku raali geliso ayaad ka arki doontaa hadii aad rabtidna waa shiidi kartaa oo ayadoo shiidan ayaa wax sameynay caano kulul ayaa ku darsanay waad ku shiidaysaa ubadkaaga sidaas ayaad u siinaysaa xulbada caafimaadkeeda lagama sheekay karo maqaarka kobcisa lafay kobcisa miisaanka kobcisa wax walbo way isku darsatay ugu roonaaw ilmahaaga qaasatan ilmaha miisaan xumada heeso aad ugu ogaaw xulbada si wax badan oo natiijo ah aad uga heshid aadna ku raali geliyo waxaan jeclahay waxyaabaha faa'iidooyinkan leh in aan soo gudbiyo markasto halkan aad ila soo gaartay muuqaalka like gare share gare hadii aad subscribe saarina isaar markasto maalinkii 2 mar ilaa 3 mar siiso ilmahaaga gurigaadii ku joogan haday wax ku bartaana mar walba sii qaasatan subaxii hore oo kale caanaha uu shiido kala arag ayuu noqonayaa cunugaas wallahi ma sha Allah qurux ayuu noqonayaa lafa xitaa balbalaare ka dhigtaa way kubcisaa ma fahamteen ku ogaada caruurtiina marka hadii aad rabtiin si qurux badan cunugaaga inuu kugu koro sirta kuriimada xulbada ay ku jirtaa ka agdhawaaw hooyada tahay caafimaadna rabto cunugeeda inuu u helo adag rabtid ilmahaaga in ay yeeshaan oo aad ay u jiljilan yihiin xulbada ayaa ku adkeenayso marka waa kaasa hadee like-ta iga halmaaminina u share gareey walaalihiina kale. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.